Salaamu calaykum. Gabadha la furay hadday ku riyooto ninkii ay kala tageen. Inta badan waa axaadiisa nafs. Haddaa ku riyootid ninkii aad kala tagteen oo mar walba riyada aad ku arkaysid adigana caadi ahaan aad niida ku haynin aanan ahayn axaadiisa nafs. Taa waxay tilmaamaysaa inuu asiga niida kuga haayo oo asiga mar walba kaa fikiraayo. Haddaa ku riyootid ninkii aad kala tagteen oo dhool cadaynayo quruxsan yacni hay-addiisa ay wanaagsan tahay riyada dhexdeeda waxay tilmaamaysaa isku soo noqosho. Haddii aad ku riyootid ninkii aad kala tagteen oo meel wada fadhidaan taan waxay tilmaamaysaa inay dad ka shaqaynayaan inay isku keen soo celiyaan yacni heshiiska shaqaynaya. Haddaad ku riyootid idinkoo hab isa siinayo mise dhankasho mise jimaac taana waxay tilmaamaysaa inaad isku soo noqon doontaan. Intaanoo dhan aan ka hadlay waa haddaynan axaadiisa nafsi ahayn. Axaadiisa nafsi waxay tahayna muuqaal u qaasaan idinka soo sheegi doona insha Allah. Wassalaamu calaykum.